haddaba sicir bararkii 1973 dowladihii waaweynaa waxa ay ku qasabtay siyaasadda bariga dhexe inay wax ka beddelaan sababtoo ah waxa ay arkeen waddamada carabta haddii ay isku soo dhowaadaan gacmahana ay isqabsadaan in dhaqaalaha adduunka oo dhan ay gilgili karaan waddamada adduunka sida ay u kala farsamo iyo wax soo saar badan yihiin waddan walba waxa uu doono haddii uu soo saara xitaa laasim waxa uu u baahan yahay in shidaal uu helo tusaale shiinaha oo loo arko awoodda subar baawanka dunida ee dhowaan haddii shidaalka oo keliya sacuudiga iyo ruushka ay u diidaan shiinaha sicir barar xoog badan oo adduunka oo dhan saameey ayuu gelayaa tanina waa waddada ugu sahlan ee dhaqaalihiisii lagu burburin karo laakiin waxyaabaha noocani oo kale dowladuhu waxa ay ka xigaan in dagaal uu dhaco haddaba qodobka ugu muhiimsan ee halkani ku jira ayaa waxa uu yahay adduunka oo dhan ma bariga dhexe oo keliya miyuu shidaal ku jiraa waddamada kale ee shidaalka haysta waa maxay sababta khilaafka iyo dagaalka bariga dhexe oo kale uusan uga dhicin jawaabtu waxa ay ku hoos qarsan tahay in carabtu shidaalka ay ku iibinayaan qiime aad u jaban oo ruushka iyo iiraan aysan ku iibinin maadaama qiimaha shidaalka carabta uu aad u jaban yahay dowladaha oo dhan awooddoodii in dhankan ay u soo leexiyaan waa sababta weyn ee ka dambaysa waayo cidna ma ay rabto shidaal qaali ah in waddan kale ay ka soo qaadato iyada oo waddan raqiis ah ay heli karto dhanka carabtuna in shidaalkoodii raqiis ay ka dhigaan waxaa ugu wacan in aysan haysan il kale oo dhaqaale oo shidaalka alternative u noqon karta sidaasi darteeda waxa ay ku qasban yihiin ishani dhaqaale inay aad u ilaalsadaan haddaba 1973 kadib dowladihii waaweynaa waxa ay go'aan ku gaareen in ay xoojiyaan awoodda bariga dhexe ay ku leeyihiin si looga hortago sicir bararkii 1973 cunaqabatayntii shidaalka ee carabtu ay bilaabeen waayo carabta oo heshiisay oo hal mowqif wada qaadatay saamayn weyn ayuu mowqifkoodii adduunka oo dhan dhaqaalihiisii uu ku yeelan karaa si arrintani looga hortago mashruucyo badan oo ku talagala ayaa bariga dhexe laga fuliyey sida eedaymihii beenta ahaa ee saadaam xuseen iyo ceersashadii ururka taalibaan iyo kooxo kale oo argagixisa oo mar walba deegaankani bariga dhexe xasillooni la'aan ka abuura ayaa lagu beeray hadba iyada oo la fiirinayo bulshada deegaankani dhanka ay ka jilicsan yihiin ujeedka oo dhan ayaa waxa uu ahaa in bariga dhexe istiqraar la'aan meel xasillooni aanay ka jirin oo dadku ay ka fogaadaan in laga dhigo sababtoo ah dadku waxa ay ku qasbanaanayaan in ay kala cararaan qaxootinimo gaajo iyo rafaad inay ku noolaadaan tanina dowladihii rabay in halkani awooddoodii ay ku muujiyaan waxa ay u tahay fursad aad weyn sida in ay la dagaalamayaan kooxo si kasta halkani iyagoo ay ugu beereen hadba dowlad walba siyaasadda bariga dhexe ay u joogto midba midka kale waa ay ka duwan tahay sida sacuudiga iyo maraykanku waxa uu leeyahay sacuudiga halkani innaga ayaa kugu difaacayna boqortinimadaadina ilaalinayna cadowgaadii sida iiraan oo kalena cunaqabatayn ayaan saaraynaa keliya adiga waxaad iska bixisaa askarta aan kuu soo dirna miishaarkoodii sidaana maraykanka waxa uu fursad ugu helay in saldhigyo uu ka samaysto waddamada carabta dhexdhexaadiyo ajnebiya maadaama halkani uu soo degay waddamada carabta suurtagal ma aha inay isku soo dhowaadaan dhammaan deegaankani bariga dhexe wax walba oo ka dhaco waa waxyaabo laga maalgelinayo dhanka iyo dowladaha waaweyn sidoo kale bariga dhexe waxaa mara waddooyinka lafdhabarka u ah ganacsiga adduunka maanta masar oo keliya haddii ay xirato kanaalka suways maciishadda adduunka isbeddel aad weyn ayaa ku imaanaya qof dunida dhankeedii kale meel aad u fog ku noolaa ayaa saamayn waxa ay ku yeelanaysaa ficilkaa yar ee dowladda masar ay samaysay sidaasi darteeda bariga dhexe ahmiyadda uu leeyahay dhanka dhaqaalaha marka laga soo tago waa goobtii diimaha si kooban waxaa la odhan karaa muslimiintu waxa ay gacan ku hayaan maanta in badan oo dhaqaalaha adduunka ka mid ah iyo waddooyinka ganacsiga ee adduunka lafdhabarka u ahaa si kastoo maraykanka iyo reer galbeedka maamulkanina faraha ay kula jiraan laakiin juqraafigu waa juqraafigii muslimiinta
laga yaabee in halkani xigmad ay ku jirto, waayo diinta islaamka halkii nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee uu ka soo baxay waa Bariga Dhexe, halka dagaalada iyo hardanka dowladaha adduunka ugu waaweyn uu ku dhex marana waa Bariga Dhexe. Sidoo kale Bariga Dhexe waa halka diimaha oo dhan Yahuudda, Kirishtaanka iyo Muslimiintu ay ku wada kulmaan. Bariga Dhexe isaga oo fakhri ahaa ayaa dhulka hoostii Alle shidaal uu ka soo saaray. Mustaqbalka dambena qiyaamaha sida axaadiista nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee laga soo warinayo waa halka dajaal uu ka soo bixi doono, waa isla halkii nebiyullaahi ciisa calayhi salaam uu ku soo degi doono. Axaadiista qaar waxa ay sheegayaan sida nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee laga soo wariyey waxa uu dhahay, qiyaamaha ma dhici doono webiga Furaad isaga oo aanan qalalin. Marka uu webigani uu qalalana hoostiisii waxaa ka soo dhex bixi doona buur dahab ah oo aad weyn. Dadka halkaasi ku sugan waa in aysan waxa halkaa ka soo baxa waxba aysan ka soo qaadanin. Dadkiisa halkaa wax ka soo qaata 99kii qofba hal qof oo keliya ayaa ka badbaadi doona. Inta kalena 99kii qofba yacni 100kii qofoodba 99 qofood oo ka mid ah isqabqabsiga iyo dagaalada aawadii waa ay dhimanayaan, fitnada halkaa ka dhalan doonta aawadeedii. Xadiiskanina dhinac waxa uu muujinayaa isqabqabsi iyo dagaalo weyn inay ka bilaaban doonaan Bariga Dhexe. Tanina horudhaceedii waxa uu adduunka u arkay shidaalka maalintii la helay lana ogaaday ahmiyadda uu leeyahay wax walba oo fitna ah in Bariga Dhexe isugu imaadeen. Haddaba webigani hoostiisii maxaa ka soo dhex bixi doona? Xadiiskani buurta qarsoon ee uu sheegay maxaa loola jeedaa? Waqti xaadirkani suurtagal ma aha in aan fahamno, laakiin sida cilmi baarisi la sameeyey ay tilmaamayaan, webigani Furaad marka loo fiiriyo sannadyadii hore si xooli ah ayaa nusqaan dhanka iyo biyaha looga dareemayaa. Tanina maqaalaadka akademiga ee sayniska ayaa lagu sheegay. Labadani sawir ee kuu muuqda midkood waxaa la qaaday 2006, midka kalena waxaa la qaaday 2009. farqi weyn in biyaha uu dhexeeyana qof walba ayaa halkani ka arki karaa. Aqoon-yahanada qaar waxa ay rumaysan yihiin webiga Furaad qiyaas ahaan 2040 gebi ahaantiisuba inuu qalali doono. Waxaase ku xiga sida xadiiska nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee uu sheegay, webigani oo qalala in halkaa fitna aad weyn inay ka soo bixi doonto. Si kastoo ay noqotoba, dhacdooyinka Bariga Dhexe ka dhaca iyo qalalaasooyinka waxaa suurtagala xikmad rabbaani ah in ay ku jirto, maadaama Bariga Dhexe oo keliya shidaalka adduunka 36% laga soo saaro. Qalalaasooyinka iyo burburka deegaankanina waxaa asal u ah shidaalka.